السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله. دعوة شرفت لي كسود هذا أرق دمير. إلهي wuxuu ka soo saaray ubadka nabi Ibraahim Shucayb wuxuuna ka dhigay nabi iyo rasuul ilaa dhammaan nabiyada marka laga reebo aabaha dadka nabi Aadam waxay ku abtirsadaan nabi Nuux ama nabi Ibraahim sida hore u soo xusnayna nabi Ibraahim waxa ka horeeyay nabi Huud iyo nabi Saalix waxay ku abtirsadaan ubadka nabi Nuux balse nabiyadii ka dambeeyay nabi Ibraahim waxay ku wada abtirsadaan nabi Ibraahim nabi Shucayb ee ku abtirsada ubadka nabi Ibraahim ayaa wuxuu kula noolaa qoomkiisa meel u dhaxayso dhulkii lagu soo halaagay qoomka nabi Saalix reer Thamuud iyo qoomkii nabi Luut macnaha meel u dhaxayso Xijaas iyo Shaam ee jasiiradda Carabta magaalo lagu magacaabo Madyan qoomka nabi Shucayb ayaa waxay caan ku ahaayeen laba shay oo mid ay ka mideysnaayeen qoomyadii ka horeeyeen sida qoomka Caad qoomka Thamuud qoomka nabi Ibraahim iyo qoomka nabi Luut waa alla wax la wadaajinta iyo sanam caabudka talnaad iyaga ay gaar u ahayd sidii qoomka Luut ay gaar ugu ahayd isdamcida raga dhaxdooda sidaas oo kale ayaa qoomka nabi Shucayb waxay caan ku ahaayeen iyagana u gaar ahaa musuqmaasuq wax isdaba marin ilan waxay caan ku ahaayeen dhaqaalaha ganacsatadooda ayaa wax isdaba marin ku sameeynayay badeecada taasina waxay u dheerayd cibaadada geedaha is urursan ee kaynta sidaas darteed ayaa waxa loogu bixiyay asxaabul ayka qoomkii kaynta sida caadada nabi Shucayb ayaa bilaabay qoomkiisa inuu ku waaniyo tawxiidka iyo aakhir rajaynta wuxuu u sheegay inuu yahay rasuul Allah xaqiis laga soo diray ayna tahay inay adeecaan wuxuuna ku waaniyay inay isaga tagaan dhul fasahaadinta balse reerka kaynta ayaa ku dhahay nabi Shucayb waxaa tahay sixiroole kunama rumaynayno waxaa tahay dad anagoo kale ah waxaan ku aragnaa inaad tahay beenaale nabi Shucayb ayaa ku yiri qoomkiisa qoomkayo ilaahay kaliya caabuda ilaah kale idin sugnaaday ma jire xana dhimina beegida iyo miisaanka waxaan idin arkaa idin lidinku nimceeyay khayraad iyo dhaqaale waxaan idin kala xabsanayaa maalintii qaabeen uu idinku dhaco cadaab qoomkayo oofiya oo dhameystira miisaanka iyo miisida si cadaalad ah hana ka dhimina dadka xaqooda dhulkan ha fasaadinina xalaasha haraaga ilaahay ay idin hartay cadaalada kadib ayaa idin kaga khayroon wax isdaba marinta iyo dhaqaale xumida reerka kaynta ayaa ku dhahay nabi Shucayb oo masalaadaada ayaa ku fartay inaan ka tagno waxay caabudayeen aabayaashanada iyo sidaan ka yeeli lahayn dhaqaalaheena iyo hantideennada marka adiguna waxaa tahay qof degan oo wax garad ah ma sidaas baa nabi Shucayb ayaa ku yiri qoomkayo bal ka waram haduu ilaahay ii keenay cilmi iyo xaq iguna quuday risqi xalaal ah aan doonaynin inaan sameeyo wax idinka reebayo oo sanam caabud ah iyo wax isdaba marin dhaqaale waxaan doonayaa qura wax hagaajin intaan ka awoodo tawfiiqdeeda iyo waafajinta xalaal miirashada iyo tawxiidka waxay ka sugnaaday xagga Allah ilaahay ayaan tala saartaa isagaan u laabtaa qoomkayo way idinku xambaarin khilaafkayga iyo ku xumeynteeda darteed inaad ku sugnaataan xaaraan cunida iyo dhaqaale isdaba marinta markaas idinku dhaw cadaabkii ku dhacay qoomyadii idinka horeeyeen qoomka Nuux qoomka Huud qoomka Saalix qoomka Luutna idinkama foga ilaan qoomka Luut waxaa la halaagay muddo aad ugu dhow waxayna ku noolaayeen meel u dhow ay degnaayeen qoomka reerka kaynta ee reer Shucayb nabi Shucayb ayaa ku yiri ilaahay u laabta u tooba keena ilaahayna wuxuu jecel yahay cid tooba keentay reerka keenta ayaa ku dhahay nabi Shucayb ma ka seeno in badan waxa aad ku hadlayso waxaana ku aragnaa mid ku tabar daran agtanada haddaysan kooxdada ahaan lahayn ku dhagaxayn lahayn kumana liid agtayna qab iyo qiimo nabi Shucayb ayaa ku yiri qoomkiisa reerka keenta ma kooxdeeda ayaa idinka la weyn ilaahay aad dabar jeediseen xaqiisa ilaahayna wuu ogyahay waxaad sameeynaysan ha fariisanina wado walba idinkoo goodinayo kana celinayo cidii rumaynayso jidka Allah idinkoo doonaya qaluucin xusuusnaadana markaad aheedeen kuwa tira yar oo ilaahay idin badiyay eegana sida ay noqotay ciribtooda kuwii wax fasahaadin jiray haddayse koox idinka mid ah ee rumayso waxa la ila soo diray koox kalena diido gegsada intuu ilaahayna kala xukumayo ilaahay ayaa u khayran inta wax xukunta madaxdii macangageed isla weyneed ayaa ku tiri nabi Shucayb waxaan ka saareynaa magaaladanada haddaydan ku soo laabanin diintanada nabi Shucayb ayaa ku jawaabay oo miyaana lagu khasbayaa markaas waxaan ku been abuuranaynaa ilaahay haddii aan ku soo laabano diintiina kadib markuu naga soo badbaadiyey mana haboon inaan ku soo laabano diintiina inuu ilaahay doono mooye ilaa nabi Shucayb markuu ka hadlayo ku soo laabashada wuxuu ku hadlayaa magaca mu'miniintii soo muslimay ilaa nabiyada ilaahay ayaa ka ilaaliyo ceebaha dadka sidaan hore u soo xusnayba kuma aysan ekaan madaxdii macangaga ahayd inay u goondiyaan nabi Shucayb iyo mu'miniintii raacday inay ku soo laabtaan diintooda alla wax la wadaajinta ah iyo musuqmaasuqooda dhaqaale balse waxay ku sii dareen inay bilaabaan inay u goondiyaan qof walbo niyeysto rabo inuu ku biiro nabi Shucayb iyo mu'miniintii raaceen taasina waa calaamad lagu garto dadka lagu jabiyo cilmi iyo caqli waxayna dhaheen Shucayb oo dad wax isku hayso cirka ka soo dir cadaab markay wado walbo waanin iyo baraarujin ay ka xireen nabi Shucayb una goondiyeen inay adeegsanayaan awood dalbadeen cadaab ayaa ku yiri nabi Shucayb camal fala waxaad sameeynaysan aniguna camal falaya waxaadna ogaan doontaan cid ay u timaanaysa cadaab hoojiyo iyo cidda beenaalaha ah suga anna waa idinla sugayaa cadaabka maalmaha ka mid ah markay cadceedu soo bixaysay aroortii ayaa hal mar waxa u timid qaylo gariir leh dhammaan reerkii kaynta ayaa waxay ku noqdeen guryahooda kuwa jilbakaduudan oo dhintay sida qoomkii Thamuudba loo halaagay aan soo xusnay inay ku geeriyoodeen jilbakaduudnaanta guryahooda dhaqaalo dhaqan gardarana marba ilaahay qabto wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wassalaamu calaykum